gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya oo dalkani Jabuuti u yimid ka qaybgalka dib u furista wada hadal jamhuuriyadda Soomaaliya iyo Somaliland isla markaana ku sugnaa labadii cisho ee la soo dhaafay dalkani Jabuuti ayaa waxa uu maantay safar booqasho ku tagay magaalada Randa oo iyadu 280 kiiloomitir u jirta caasimadda dalkani jamhuuriyadda Jabuuti. safarka gudoomiyaha golaha shacabka ee jamhuuriyadda Soomaaliya oo uu ku wehelinayay gudoomiyaha baarlamaanka dalkani Jabuuti ayaa waxaa sidoo kale ku wehelinayay xubno ka tirsan xildhibaanada labada baarlamaan ee Soomaaliya iyo Jabuuti. safarka oo ahaa mid dhinaca badda ah ayaa waxa ay qaateen mas'uuliyiinta kala duwan. mid ka mid ah maraakiibta yaryar ee wadankani Jabuuti laga leeyahay markabkan ayaa waxa uu muddo saacada ku sii jiray inta u dhaxaysa magaalada Toojora ee loo yaqaan magaalada cad iyo caasimadda dalkani Jabuuti. kadib markii la gaaray gobolka Toojora ayaa waxa goobtaasi ka qaaday gaadiid kale oo halkaasi ugu diyaarsanaa waxaana 180 kiiloomitir loo dhaqaaqay dhinaca magaalada Randa. magaalada Randa waa magaalo qadiim ah kana tirsan magaalooyinka aadka u daada weyn ee dalkani Jabuuti waxaana ku dhashay gudoomiyaha baarlamaanka ee dalkani Jabuuti Maxamed Cali Xumed. muuqaalka magaaladaasi inta aan la gaarin ayaa dariiqu waxa uu yahay mid aad u qurux badan marka loo eego deegaanka Ilaahay ku sameeyay buuraha iyo waliba qaybaha kala duwan ee dadka halkaasi ku nool oo iyagu ah kuwa nabadda jecel dalkoodana ilaashada. markii aan gaarnay magaalada Randa ayaa waxaa gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya la soo daawadsiiyay qaybaha kala duwan ee degmadaasi ay ka kooban tahay iyo waliba goobo taariikhi ah waxaana gudoomiyuhu uu aad uga helay booqashadaasi isagoo ku tilmaamay inay tahay booqasho taariikhi ah. booqashada labada wafdi ee Jabuuti iyo Soomaaliya mas'uuliyiintooda golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya iyo gudoomiyaha baarlamaanka ee dalkani Jabuuti ay ku tageen magaalada Randa ayaa waxa ay tahay mid lagu sii adkeynayo xiriirka iskaashiga cilaaqaadka walaalnimo ee ka dhaxeeya dawladaha Soomaaliya iyo Jabuuti. waxaana sidoo kale baarlamaanka Jabuuti uu leeyahay guddi si gaar ah ugu xilsaaran la socodka hagaajinta iyo waliba isku xirka walaalnimada jamhuuriyadda Soomaaliya iyo jamhuuriyadda Jabuuti. waana markii ugu horeysay gudoomiyaha golaha shacabka ee jamhuuriyadda Soomaaliya uu gaaro gobolada waqooyi ee dalkani Jabuuti gaar ahaan magaalada Randa. Mikael Cabdirashiid Barre, raadiyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed, Jabuuti.